laakiin maalad maxkamadaan joognaa xabad joojin baan ku dhawaaqnay waraadaha ilaa ramaan misinaysa way adeena qadid jaad ku shan kamaysan inta kala dagaalaysa wali dagaal u socda hala jaadka wali ilaahay yaqaan ani adiga keenan kala dilay wuxuu yiri war maxaad ila dagaashay eeba waxa iga rabtaa hooyada hawiyada daarada iyo isaaqay cid walba la dagaalaha dadka ka hooyay ha dagaal oo qaba magac ma sheegna ay caswa mooshin cadaaladda joogna ICT marka maanta waxaan ku dhamaysanay aniga iyo daahir inaan dhamaysano hawsheena maloq dambana ma jirto ka gacan ma jirto waa dhamaatay qadiyad weyn baan wadaa toosh dambe hay u daarin bas waa ballan waa toosh dambe dagaalkaas waa dhamaaday dagaal dambe la soo celin marka arrintaas way dhamaaday idinkuna waa ujeedaan daahir wakaas rag baa inta madaxaas jabiyey Soomaalidu saasi qiimo ku leedahay fahamtay intay dagaalaan Soomaalida ay haddana si nabad oo walaalnimo marka saas ku qalqabtaan u fahamtay marka Soomaalinimada ma qashan qiimaha ay leedahay inta dadka kale aan ugu fiicanahay ina intaan dagaalno haddana heshiino hadda ciyaal qowl ma leh daahirow hadda gurigaaga studio-gaaga marka tagtay ama rasaasti bilowda ma yaxda u bato magac sheey bas awal dagaalka la bilaabay jooji hadda waa heshiilay arrintu way dhamaatay شيخ آدم ما شيخ مصطفى أنت نقدر من شيخ تفضل وما سنتين ظاهر وما دعينا سيدو نقدر وقاتل ولكيسنا ونبدلي عوالنا وما دعينا سيدو ولكيسو عافية والله شيء مركز صومالي هذه ظاهر عواله شيء صومالي الله شيء كرتا شيخ دوار ما تسمع تاجرياش هذا نحن السلامية تاجريال الله يلا الليلة إلا بعد دجال بدل تاجرياش wax aqwa ay leeyihiin malaha moqt wax khalad iyo sax ku garab taageen bini'aadan ma والله تكون صعبة دق محكمة كنت هنا محكمة كنت هنا عوالة ويديك عوالة ويديك dadka ma joogaan فيسبوك kala socda live dadka ma joogaan ala u tagayay central station kay joogaan meelaha ma kala yaqaanin dadku waa kuwa